reer koonfur galbeed ma rabtaa dhul gariir siyaasadeed iyo banaanbaxyo cajiiba isbedel qurux badan dalkan Soomaaliya guud ahaan inuu ka dhaco ma rabtaan inta rabto faraha taaga waxaa ka codsanayaa siyaasiyiinta ka soo jeedo koonfur galbeed Soomaaliya in madaxweynaha soo socdo laga dhigo qof beesha shanaad ka soo jeedo ama beelaha Tuni Geledi Bandhawow Marko iyo Afgooye iyo Walnaweyn iyo Baraawe qof ka soo jeedo oo weligood aanan madaxnimo ku haminin ee dhibaatadan dalka ka jirta cadaalad xumo Ilaahay idinku farxi doono Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku abaal marin doono adduunkana uu idinku abaal marin doonaa Soomaaliyo dhanna waa idinku abaal marin doontaa isbedelka koowaad ee looga gudbi karo 4.5 qashinkan duliga ah ee dulooday ee dalkeena quruxda badan dhaqaale uu ka buuxo dhibaatadii looga gudbi lahaa iyo tusaalihii looga gudbi lahaa ayaa noqon doontaa waa haddaa imaqlaysaan digil iyo Miriflow 8 iyo 9 iyo 7 iyo 6 intiina ka gudba beelahan soo tartamay ee Villa Baydhabo isla haysiiyay oo aniga ka dhashay ku jiray ku xisaabtaba beelaheenan hadda xildhibaanadan ee nidaamkan baqtiga lagu soo doortay ee magaalada Muqdisho dowladda federaalka 4.5 ka ee aan isla haysiinay anaga tiro badan ee anaga wanaagsan tahan hadaa rabtaan fursadii Soomaaliya isbedel weyn ay ku gali lahayd adduunka dhan oo taariikhda baalka cad ee quruxda badan ay ka gali lahaydeen waxda rabtaan fadlan beelaha aqliga badan karaamada badan ee dulqaadka badan ee dhulkaas dego madax ka dhiga intiinaan kale ee isla haysiiyay ee waaweynka ah golaha madaxweynahaas ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo uu soo dhisi doono ka mid noqda dalkan dhinaca u wada riixa taas ma dhacayso Soomaaliya sida hadda aragnay Shariif Xasan sharaxan aadan madow sharaxan kii kala sharaxan waa dad 20-30 sano madaxnimada ku fadhiyay ee siyaasadda ku fadhiyay hase yeeshee xabad aan u qabanin ummadaas Soomaaliyeed ee meesha degan ka hor wareega jaab waxa arkaya cilado fara badan oo soo ifbaxaya arkaya waa laga faa'iideysan laayahay bixitaanka madaxweynaha hadda meesha fadhiyay maxaa lagu nacay lafta gareen ani uma jeedo qof qabiil ahaan u nacay uma jeedo ma arko raweynta waxa lagu yaqaan in is wada raacaan waa iskala kaftaman qabiilka laakiin waa is wada raacaan ninkaas waxa lagu nacay waxa uu uusan qaban hadii kii kale oo asaga la mid ahaay oo shaati kale kii hore ka duwan leh wato haduu noo imaado maxaa soo kordhis marka hadda ka hor Iraq waxa ka dhacay isbedel cajiib ah horta ninka Saddam Hussein sida ogeedeen sunniga ahaa awood badnaa ninkaas waa taageeray dabcan meeshu ka baxay dagaal looga saaray waa la jibiyay Iraq waxa ka jiri jiray dabcan ilaa haddana ka jiro dad qoorta looga fadhiyay lugta qoorta laga saaray ee Kurdiinta la marka waxay sameeyeen golihii markuu Saddam Hussein meesha ka baxay awoodii Shiico iyo Sunni ku tartantay waa la raftay inta ka dhac nina marka aqli keenay nin kamid ah Carabti Iraq wuxuu yiri walaalayaal si maslaxa loo helo nin Kurdiga ka soo jeedo Kurdiinta oo aan xitaa weligiis ku haminin madaxweynenimo oo jabhad ahaa oo dagaal ku jiray dhulkooda iyo ceelashoodii u dagaalamayay bal ka waran inta madaxweyne ka dhignaa ka waran haddii madaxweyne ka dhigno ninkaan odaga ujeedaan Jalaal Talibani ayaa laga dhigay madaxweyne Iraq waa asqabsatay qof cuqdad u qabo xaqiiqatan siyaasiyiinta ka ahayn waa la waayay shacabkii waa la wada qabsaday ninka odaga dalkiisana wuu u hiiliyay dadkiisana wuu u hiiliyay Kurdiintii ceelashoodii shidaalka ee lagu habsaday ee Saddam Hussein iyo xisbigiisa bacaaska ay maamuli jireen uu ka saaray dadkiisu faraha u galiyay Kurdiinta maanta waa aragteen waa dad Turkiga uu ka baqo Syria xitaa dhulkooda wali laga haysto hala duqeeyo laakiin waa dad dagaalamo ugu yaraan dhulkooda ku fadhiya hadartan soo ceshtay dhankan Iraq ha u badnaato kuna haminayo maalin in Turkiga iyo Syria iyo Iran dhulkan ka maqan ee madax ka noqdaan ku haminayo Iraq laakiin xaqooda ka heleen way fadhiyaan taas waa hal tusaale
maamadan Ellen Johnson Sirleaf Liberia ayadoo yaaban wax maalgashada la waayay faqri ah khashinka ayaga iyo ari carbeedka ay jidka wax ka wada cunayeen ayaa maamadan oo gabar ah markii ugu horeysay gabar meesha madaxweyne ka noqotay adduunkii ordaayo ayaa yimid maasha allah maama la doortay gabaray doorteen waa dad furfuran waa dad ilbax ah maalgashigii iyo dhaqaalihii waagaas ay sameeyeen ilaa hadeertan Liberia si fiican u soo kobcaysa Rwanda ayadu isdilayso baangada isku qalaayo 94kii isbaabi'inayo oo iska siinayo ku awood meesha isleeysi iyo nin ka soo jeedo jinsiyada laga tirada badan yahay Paul Kagame ayaa madax looga dhigay maanta laga yaabo inaad tagtay dhulkaas quruxda waa aragtay dabcan haba iska ahaado dictator durab tusaale kale oo fiican aan rabaa inaan ku soo koobo barnaamijka nin la dhihi jiray South Africa waa wada taqaanaan Nelson Mandela dadka madowga ah way isdili jireen waxaana kor ka haystay kor ka maamulanayay cadaanka kor ka haystay ayagana aqli ay ku fikiraan malahan way isdilayeen ninkaana ka dhaxadli jiray dadka oo dhihi jiray madowga hadaada dadkiina madowga ah hadaadan isku imaanin oo aadan midoowin oo aan dadkan iska celinin Allah ilaahay wada qaldan ku socotaan dhulkan waa weyn doontaan Nelson Mandela dhahay qeyladiisii iyo shanqartiisii markay maqleen cadaankii iyo kuwa madowga ahaayee daba dhilifku ah cadaankii Nelson Mandela xabsiya dalaq la siiyay 20 iyo maazaada sano soo cunay wuu ka soo baxay wuu u khudbay dadkiisa hadaladii uu dhihi jiray loo dhahay aamidowno dhinaca ugu soo wadeejeysano dadka dhibka nagu hayo tusaale fiican oo maanta waa aragteen taalooyin dal kasto Yurub ay tagtid taala uga dhisan ninkaas odaga ah dadka laga tirada badan yahay madaxa looga istaagay laakiin kacay qadiyada iyo dalkiisa iyo dadkiisa ayadoo la necib yahay xitaa dadka qaar oo isla dadkiisa ay soo weerarayaan ku adkaystay tusaalahaas oo aan biila marinin ayaa u jeedaa maanta Baydhabo inay ka dhici karto Baydhabo hadaa rabtiin tusaale wanaagsan oo qurux badan Soomaali ina noqoto hadda kuwa qabyaaladeenaya jir waa arkay waalidin ka badiyay intay ka dhacday beelhebel ay soo waxaas ka kacway hadaa rabtaan inaad tusaale noqotaan kuwan madaxda telefoon ma iga qabanayaan oo u jeeda hadaan isku day afaaraa inaan ku soo qaadana way ugu damiyaan kuwa madaxda isku sheegada ee koonfur galbeed adiga ay soo jeedno walaalayaalow tunni bandhabow jareer weyne dadkaas madax nooga dhiga anoo ordaayo Baydhabo dhex ordaayo calan dheer oo Soomaaliya iyo calan koonfur galbeed waa ay arki doontaan nooga dhiga dadkaas dadkiinaan kale beesha aniga aan ka dhashay kama tahay meeshan noo dhax fadhiyo waxba qabanin beer falanin shaaxoodaas kaliya galabkii iyo BBC-daas iska ag fadhiyo gambar waxba noo qabanin naga hor wareega ninkan beelahan madaxweyne ka dhiga dhulkan tusaale sax ah oo looga gudbi karo 4.5 ka baqtiga hadana heesto raxweynay hadaa rabtaan ina madaxweyne noqotaan hadda dabcan dastuurka jareer weyne iyo beelahan kaliya kale ma idinka liftirkii dastuurka gudoomiye baarlamaan bas oo idinku riixaya cid ka hadlayso male hadartaan si cadaalad ah qof walba oo Soomaali ku dhaxdhashay maanta af Soomaali ku hadlo inuu ku hamiyo siyaasadda meesha ugu fiican inuu ka gaaro tusaale fiican noqda maanta Ellen Johnson Sirleaf noqda Jalal Talibani noqda Nelson Mandela noqda Paul Kagame noqda kuwan kale ee caanka ah ee soo hortaagan ee hadda hor wax soo qabtay haddaan nagu soo celisaan anigii idinka waa kala dhimanay